ku soo dhawaada waa channelkeeni Maanka Media iyo barnaamijkeeni arrimaha ka daaqarsoon waxaanu kugu soo bandhigi doonaa. Terrorist meeting the Secretary of Defense's office today, and he said this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years. Soomaaliya oo ka mid ah 7 wadan oo loo qorsheeyay in lagu burburiyo 5 sano gudahood. labada kun iyo kowdii bishii sagaalaad 11keedii 9/11 weerarkii Mareykanka lagu qaaday daaraha mataanaha 10 maalin kadib waxaa la qorsheeyay sidii loo burburin lahaa 7 wadan oo 6 ka mid ay dhisnaayeen halka hal wadan kale uu ku jiray dagaal sokeeye. 7 la qorsheeyay in lagu burburiyo 5 sano gudahood magacyadooda waxay kala yihiin Iran, Iraq, Soomaaliya, Suudaan, Syria, Liibiya, Lebanon. halka Soomaaliya 2001 ay ku jirtay dagaal sokeeye dadkii xilliga isdagaalayna aysan ka fikirin danta wadanka aysan ka fikirin sidii loo xalin lahaa dhibaatadii taagneed. hase ahaatee waxaan arrintan idinkaga soo turjunay sargaal ka tirsanaan jira ciidamada Mareykanka oo la oran jiray Wesley Clark oo xilliga ka hadlay arrinta wuxuuna leeyahay sida tan. Tombari kabacdi anoo dhex maraya Pentagon waxaana kay Secretary Rumsfeld iyo Deputy Secretary Wolfowitz hoosayaan u dagay saan u salaamo dad ka mid ah shaqaalayaasha joint staffka kuwaas oo ii shaqayn jiray. markaas waxa ii wacay General wuxuu dhahay mudane kaalay waa inaan soo gashaa aan kula hadle sakamo. waxaan ku dhahay soo mashquul ma tihid. waxuu dhahay maya. wuxuu dhahay waxaan gaarnay go'aankii Mareykan ahaan inaan weerarno Ciraaq. markaasna waxay ahayd 20kii September. waxaan dhahay Ciraaq ayaan weeraraynaa sabab. wuxuu dhahay ma aqaan. wuxuuna dhahay waxaan u malaynaa wax kaloo ciidanku qabtaan ma laha. markaas ayaan dhahay ma waxay heleen cadeymo isku xiraya Saddam iyo Al-Qaacida. wuxuu dhahay maya wax cusub oo wadadaas ka imaaday ma jiro. waxay iska gaareen go'aan in Ciraaq la weeraro. wuxuu dhahay waxaan u malaynaa waan garan weynay waxaan ka sameeyno argixisada laakiin ciidan fiican ayaan haysanaa aan ku dudumino dawlado kale. wuxuu kaloona dhahay haddii aad kaliya buris haysatid markaas dhibaato walba oo ku soo wajahda waxaad ula dhaqmi sidii musmaar. waan soo laabtay isbuucyo kadib xilligaasna waxaan duqeynaynay Afghanistan. waxaan dhahay Ciraaq weli ma ku duuli doonaa. markaasuu dhahay sidaa waa ay ka darantaa arrintu. miiska ayuu laacay. wuxuu soo qabtay waraaqad wuxuuna dhahay waxaan haddadan ka soo degay kor uuna ula jeeday xogayaha xafiiska xogayaha difaaca dalka. wuxuu dhahay waraaqadan waxay tilmaamaysaa sida aan uga duuli doono 7 wadan 5 sano gudaheed kuna bilaabi doono Ciraaq, Syria, Lebanon, Liibiya, Soomaaliya iyo Suudaan kuna dhammaystiri doono Iran. waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena 7 wadan ee la soo tiriyay markii laga reebay Iran kaliya 6 wadan waxaa madax laga dhigaa kaliya ama noqon kara dad u shaqeeya danaha shisheeye kaliya. waxaynu doonaynaa isbedel dhaba dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxaa muhiim ah inaynu midowno waa inaynu ka gudubno qabiilka iyo qabyaaladda. waxaa kaloo inoo muhiima fikirkaaga iyo commentigaaga. barnaamij midkan la mid intaaynu ku kulmi doono sida ay nabadgelyo. Hey, you made it to the end of this video. I got a lot more that you're going to enjoy, so just click to watch the next one. And make sure you subscribe to always know what's happening.